هدف كاسدت كمسلم كوقفكم مركم مسلم نقضه ويول أما قول الراد عينيه لكن نرشو أهداف يريرو كسوكا يسيلاده وحال الربا أهداف يريرو سوكا إني أخد ميسو هدف كوين يعني وحكستو هدف كوين كوي عينيه وإنو النقضة وحان معنا بدنك تادك الصمينين مثلا إن الحوك ستو وشغيستي وأنتي يالتي ومباح ووح بنان نرشنا ولا قربه لكن هدي هدفك كوي دارين أيان كور إلهي كو قرآنك كو أماني وحلي محي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كوحبا إلهي أماني كوحدا الأماني وحلقة المامي رغنمو الرجال ويان باليدي والرجال محي كسفوبة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله باع مشتركة إيا لعقت كسب الشديد كما ويعسه ما إلا وسيسه هدف كي وينه oo ah inuu salaad oogo inuu zaka la yimaado inuu ilaahay caabudo inuu xuso in aakhiro hortiisa ay taalo yakhaafuna rabbahum inay rabbigood ka cabsanayaan maalin qulubta ay gagadoomayso idan hadafka weyni waxaan soko oo dhami dabab kuma ridaan ceeriyaan maaha ka qarin karta mushkilada dadka haysata ugu badan waxa weeyaan ilaahay wuxuu ina leeyahay هذا الصلاة دميسان محل ينيري فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صلاة أمرك دميستان لولك كفاف إليه رزاق دي سرات سدا ليري واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لكن دول كفاف هي التجارة دي وحنا هدي هدف كوين قلضيان إيجا لقهر تقيه ورجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وحبدا مركا مانت أهدافته وين تيدتكو إلا بان وحي يريرو سكينكو مشغولة حلقة يابا أنت الساعدودات كو بحسي سكول كيات ساقدين وكورن يوم القيامة هدات ساقده ما أنت أن ساقدني ما كوين يشرين حلقة يابا إنو ليه هي عيبوبين وكورن قيامة مركا غير نبي آدم ودن الله سكينة هداد عيبوده يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية غير نبي آدم إلا كودن بيا قوبي تاقيهين هداد عيبوده waxaa laga yaabaa inaad sileedahay noloshu way kugu adagtee fududee oo ka waran maalinta 50,000 oo sanadooda noloshaynu joogno dhammo waa imisa 60 sano 70 sano 80 sano ka waran maalin 50,000 oo sanadooda haddaad cadaabanto intaan janniya naarba la isla gaadhin kaana 50,000 sana maalina qiyaamuhu waa maalin 50,000 oo sanadooda 50,000 oo sanadood baa taagnaanaysa 50,000 oo sanadood baa dadkan la xisaabaya 50,000 oo sanadood baa cadceedu halkan taagan tahay 50,000 oo sanadood baad waxaad harsanaysaa waxaad xoogsatay ee hadafkaasi aad u xoogsatay 50,000 oo sanadood baad dhididaysaa oo dhididkaagu wuxuu gaadhayaa halka waa dunuubtaadu joogtay 50,000 oo sanadood baa ragga qaar harsanayaan oo carshu raxmaanka harsanayaan ay ka mid ahaayeen dhallinyaradii ku kobocday maxay إلهي عبادتيس مدحدي عدالة سمايسي كوي هبينكي استاغي إيشودا يويسي كوي قعنتودا مديق وحي بحينيسا قعنتودا بديحانا يوغين كوي شهوات نفسك كالصومي ناقا قروح دا بدن لا انت ويردين كوي راهدين إلهي بان كعب سنيا أما إن انت إنك قروح دا بدن لا ويرداتري وار إلهي بان كبقيا يايدا كوا سيوح ليدي يو عرش الرحمن بيهر سنيا عذاب كانت كتشرتي وحا كان أركي مايا كورن هداد سلادي نلش واحد وباهنتي وهي كوقت كاتبي يلعب يا شراب يا وحوجات دبدبع سنين هذا السمايسو كورن كنت كون الصندوق هدي هرات كوكاسيو ينك حوض كالنبي محمد كعبيان هراضي نبا يعني هدف كويني هدول لمه نلش نسك قيمة ماله شياطين الإنس والجن نوحي سقط تجان إني هدف كوين قريان ويكونوا مشغولين أهداف يري راسك
waxbarasho iyo capacity building iyo halkan kabood iyo xoogsi iyo shaqaysi iyo wax yar yaroo soke oo marar badan aan hadafkaba uu qiimaynaynin dhallinyaradana iyada waxa u sii dheer qaar aan tannaba wax ka tarin baaba lagu sii mashquuliyey hebel baa laadiya heblaaya kolayga ku riday kubad hadduu ku rido maxaa kaa galay maxaa ka soo baxaya ninbaa kubad 2 birood dhex mariyey maxay nolosha ku soo kordhisay gool baa la dhalay maxay nolosha ku soo kordhinaysaa aakhirana wax kama tarto adduunkana wax kama tarto idan ahdaaftii rasmiga ahayd dowladan waxa la idinku qabanayaa baan rajaynayaa in ahdaafta la saxo inaynu dib u xisaabtanno oo dib nolosha u hagaajinno inaynu buusalada hagaajisanno garanno barul amaan xagee lagu gaadhaa doon baynu saaranay noloshu waa doon badweyn ku dhex jirta hadday buusaladaadu sax tahay markabka badweynka soconaya haddii buusaladu kambasku hadduu saxan yahay mahma ay waxaanay dhacaan wuu gaadhi meel barriyo nabada uu dego wuu gaadhi haddiise kambasku kaa lumo mawjaduhunbaa kolba dhanku u kaxayn badweyntuunbaad ku wareegi doontaa adoo aan weligaana dhul arkaynin waxaa la mid ah qofka noloshan garan waaya wuxuu jooga ka qabanayo haddaad cab oo cayaar oo boodbood oo wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan samee dan hargeysaa joogtaan bal suuqa hargeysa isdhex taaga raggii dhisay meeye waa daartii xaaji hebel iyo watii ilmo hebel uma maqlaysaan meeye xaajiyadii ka tageen aarahan hargeysada aan maanta dhex joogtaan raggii lahaa cidi kama noola xaggay joogaan waa kuwaynu meelahan ku marro xataa magac male hadda xabaalaha ka bannaybana asxaabulqubuurkii xaajiyanimadii iyo magacnimadii iyo maamuuskii iyo hebel wixii lumiye waa asxaabilqubuur waa dadkaa godadkaa ku jira ciiddaynu ag marayno ma waxaad diyaar u tahay inaad danda intaad dhisto ku biirtid kuwa magaclaawe halkaa ku jira aan la kala garanaynin xufraddan ay ku jiraan dabcan qaar bay janno u tahy qaarna naar bay u tahy laakiin inaga agteenna waa asxaabulqubuurun waxay isweydiinta le markaa war maxaynu u noollahay dhallinyaroy xaggaa ku socotaa noloshaadu xagga ku socotaa jaamacad baan ka baxay shahaadad baan qaatay shaqo fiican baan helay war waa tegaysaaye waxaasoo dhammi waa maalmo waxaasoo dhammi kam labistum cadada siniin baa lagu weydiin doonaa labitnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin baa ku xigta maalin ama maalin badhkeed noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin badhkeed markaad kaleba garan weydaad waxaad leedahay fas'al ilcaadiin kuwii tirin jiray bal ha la weydiiyo adigu inay maalin tahay iyo inay maalin badhkeed taad kala saari kari laaday ee bal cid labadaa kuu kala rajaxda ha la weydiiye baa taagan tahay oo nolosha ma maalin badhkeed baad dooratay marka ayuha alikhwa hadafka aynu raadacaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafkaa wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya ragannimo ah xoogsiya dadaala adigaa lagaa rabaa inaad la timaado adiga jid baa lagugu talagalay guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdo adoo rabbigaa caabudaya adigoo ariiqa saxa ah haya waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala inuu ina wada sugo inuu inagu sugo ariiqa xaqa ah inuu inaga badbaadiyo cadaabkiisa inuu inagu sugo jidka jannada loo maro kuwa islaamnimada ku dhintayna laynaga yeelo subxaana wa tacaala